السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله caawa hadduu rabbi raali ka noqdo waxaan rabaa inaan halkan idinkala wadaago maahmaahda ay Soomaalidu aad ku isticmaasho oo la yiraahdo hubsiyano hal baa la siistaa. Maahmaahdaas sida ay ku baxday iyo sheekadii ay ku saabsanayd oo ay ka mid ka ahayd maahmaahdaas bixitaankeeda ayaan rabaa caawa inaan hadduu Ilaahay i haleeshiyo inaan idin dulmaro. qisada waxay ku dhacday maahmaahdaas ay ka dhalatay sida tan. waxaa jiray nin bahluul lagu magacaabi jiray oo reer miyi ahaa. bahluul oo macnaheedu yahay doqon. ninka asaga reer miyi buu ahaa, xoolo dhaqato ah, mana xoolo badnayn. wuxuu xoolo ka lahaa 3 neef geel ah, reer cusubna waa uu lahaa. maalinkii dambe waxaa ku dhalatay xigmad ah inuu caqli soo iibsado. 3 neef ee geel ahayd ayuu kaxeeyey asagoo dadkii ehelkiisa ahaa ay aad uga xun yihiin falka uu ku dhaqaaqay. deetana waxaa dhacday geelii inuu ninkii sidii ku kaxaysto. waxaana ka hor yimid nin kale oo reer miyi ah. wuxuu yiri war xageed geelaan u wadaa? wuxuu yiri geelaan waxaan rabaa inaan kusoo iibsado caqli maadaama aan ahay nin doqon ah oo dadka u yaqaanaan bahluul. wuxuu yiri haddaba caqli beeca aniga ahyo iga iibi geela. waa diyaar ayuu yiri. hasha koowaad magaceedu wuxuu ahaa gaduudo. wuxuu yiri gaduudo waxaad igaga iibisaa intaadan wax falin ka fiirso. deetana hashi kale oo gaafa ah waxaad iga iibisaa ruux ku aaminay weligaa ha khiyaanin. tan saddexaadna waxaad igaga iibisaa buu yiri weligaa meel khayr lagu hayo ha dhaafin. ninkii 3 neef oo geela sidii baa lagaga reebtay asagoo keligiisoo gacmo maran. gabadhiina ay ka horeyso oo dunyo kale aysan jirin ayuu soo dheelmaday, soo guureeyey. roob ayaa dhexda kusoo helay. roobkii oo da-aya ayaa wuxuu u yimid gurigiisii oo islaantiisii oo nin la jiifo. deetana wuxuu sameeyey ninkii hinaas ama masayr waxa la yiraahdo ayaa galay. wuxuu go'aansaday ninkan naagtiisa la jiifo inuu gowraco. torrey ama abley waxa la yiraahdo ayuu la soo baxay. markii uu ninkii qoorta ka saaray ayaa waxaa kusoo dhacday hashiisii gaduudahayd saakii waxa uu ku iibsaday oo ahayd intaadan wax falin ka fiirso. wuxuu yiri alla ilaahay hashaadii maadaama ay arrinka kaaga baxday bal u kaadi gabadha weydii waxa ay ninkan meesha jiifo. xagga ayuu ka wareegtay. gabadha ayuu kacashay. wuxuu ku yiri nawaaxay ninkan kula jiifo. waxay tiri waa aabbahay oo maaragta socoto ahaa. deetana roobka markuu daayay ayaan guriga soo geliyey. maamaada macnaheedu uu yahay hubseeno hal baa la siistaa. halka ayay ka dhalatay. ninka habeenka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyey sodogiis oo uu fudayd ku dili gaaray. deetana ay xakamaysay hashiisi gududahayd oo saakoo looga iibiyey intaadan wax falin ka fiirso. maamaada macnaheedu yahay hubseeno hal baa la siistaa. halkaas ayay ku dhalatay. waxaase lamataanaha 2 kale oo ahaa ruux ku aaminay ha khiyaanin iyo meel khayr lagu hayo ha dhaafin. oo 2 neef oo geel ahayd loogaga iibsaday. deetana ninkii maadaama 3 geel uu ka lahaa oo dunyo kale aysan jirin wuxuu u shaqo tagay nin boqor ahaa xilliga oo ariga haystay. wuxuuna ku yiri boqorow waxaan ka rabaa shaqo. ninkii boqorka ahaa waa soo dhaweeyey ninkii wuxuuna yiri xoolahan ii dhaqaale. muddo markay wada joogeen waxaa safar soo galay boqorkii. wuxuuna ku yiri bahluulow waxaan rabaa inaad igu sinto ciddan iyo xoolahan. waayahay ayuu yiri. habeenkii koowaad markii uu dhaxay boqorkii ayay islaantii waxay tiri soo saaka laguma dhihin reerkan igu sin? ha ayuu yiri. waxay tiri reerkan igu sin lagugu yiri xataa aniga ka mid ah ee kaalay hawsha guriga qabo. waxaa dhacday ninkii arrintii inuu aqbalay. laakiin markii uu rabo inuu ku dhaco falkii asaga ahaa ee xumaa islaanta ay ka codsatay in uu soo garto hashiisii gaafa ahayd wixii uu ku iibsaday oo ahaa ruux ku aaminay ha khiyaanin. deetana wuxuu yiri walaalay anigu waxa weeyaan hashi heblo la yiraahdo ayaan caqliga kusoo iibsaday. mana rabo inaan maaragtay ruuxii aaminay aan khiyaano. ma garanaysaa arrinta ayada ma samayn kara igada. arrintii ninkii sidii buu ku baajiyey. islaantii ninkii halkii col bay kaga qaaday. deetana boqorkii ayaa yimid. markuu yimidna waxay ku tiri may maqlaysaa ninkan habeenkii koowaad ee dhaxday ayuu igu bilaabay inuu i xoogo ilaa haatanna waa igu waday intaad imaanaysay.
ninkii boqorka ahaa wuxuu gaaray qaraar ama go-aan ayuu gaaray, shaqaale ayuu lahaa. ninka asaga boqorka wuxuu wax ku dili jiray god inta la qodo oo dab lagu shida ayuu dadka ku ridi jiray, sidaa foosha xun ayuu dadka u leyn jiray. deetana shaqaalihiis ayuu ku yidhi caawo dab ha la shido, god dheerna ha la qodo. sidai ayay sameeyeen. aroortii wuxuu yidhi god dheer ha la qodo, dabna ha lagu shido. aroortii waaga markuu baryo qofka koowaad ee idiin imaan doonana bilaa amar ayaad ku ridaysaan dabka. waayahay ayay yidhaahdeen, hawsha ayay qabteen. aroortii ayuu yidhi nimanka shaqaalaha ee halkaa joogo u geeyey cuntadan si ay ugu quraacdaan maadaama xalo dhan ay shaqo hayeen. ninkii wuu tagay orod, asagoo caradii kusii socdo ayuu wuxuu arkay 2 nin oo waddo dhexdeed taagan misena iswacdinayo oo khayr isku sheegayo. waa uu dhaafay. markuu cabaar sii socday ayuu yidhi niyahow hashaadii fiilla ahayd wixii aad ku iibsatay sooma ahayn, meel khayr lagu hayo ha dhaafin. ninkii waa soo laabtay misena wuxuu saagi istaagay nimankii khayrka isku sheegayay. sidii ayuuna ku dhegaystay. deetana waxaa dhacday islaantii ruufyaanta ahayd ee ninkan beenta ka sheegtay ayaa tiri sida ninkii loo cadaabayo aad soo fiirisid. waddadii waddo ahayn ayay martay. deetana nimankii ayay u tagtay, waxaana la sameeyey in ayadii dabkii lagu rido. ninkii raashinkii ayuu geeyey, wuuna soo laabtay isagoo nabad qabo. boqorkii ayuuna u yimid misena wuxuu yidhi maxaa dhacay ood u soo laabatay? wuxuu yidhi anigu waa intii aad adigu ii dirtay ayaan sameeyey, raggiina waan u geeyey raashinkoodii waana kasoo laabtay, maxaan kaloo samayn lahaa? wuu baxay. boqorkii nimankii ayuu u tagay. wuxuu ku yidhi soo idinma dhihin ruuxa koowaad idiin imaado dabka ha lagu rido? ha ayay yidhaahdeen, waana ku ridnay ee islaantaadii ayaa noo timid bilaa amarna waan gubnay. sheekadii halkaa ayay ku dhammaatay. waxay sheekadan gunteeda iyo gunaanudkeeda ay tahay xigmad ayaa ku jirto. ruux ku aaminay ha khayaanin. weliga meel khayr lagu hayo ha dhaafin. intaada wax falinna wax fiirso, oo macnaheedu noqday hubsiino hal baa la siistaa. barnaamijka caawa intaas ayaan kusoo afjaraynaa. insha allah wuuna sii socon doonaa sheekooyin qisooyin xambaarsan oo wax badan oo soomaalidu ay isticmaalaan laakiin asalkoodii aysan badankood garanaynin ayaan ila wadaagi doonaa haddii rabbi raali ka noqdo habeen kasta saacadan oo kale biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. haddii aad janalkan ku cusub tahayna waxaan kaa codsanayaa biliis inaad samayso subscribe, ma dhib badno, like-tana raaci. ummadda kale oo walaalahaana inaad ku sheer garayso waa muhiim. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.